bilaal radiyallahu anhu bilaal al-habashi radiyallahu anhu maalintuu dhimanayay ee sankaraadku qabtay ayay islaantiisu dul barooratay ku tiri waa xasrataah waa xazanaah waa darabaah markaasuu indhaha kala qaaduu ku yidhi na aniga ha igu dul dhawaaqino ha igu dul balanbalino ha igu dul qayline waxaad tidhahdaa quulii waa farxataah waxaad tidhahdaa waa farxadda buu ka yidhi markaasay ku tiri maxaan ku farxa sawdiga iga dhimanayo maaha wuxuu yidhi hadan nalqa alaxibbah muxammadan wa saxbah anu baritoola waxaan la kulmayaa nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii baan la kulmayaa jeelkaan ku jiray baan ka baxayaa jannadii muxamed uu galay baan galayaa buu leeyahay لماذا؟ لأن بلال رضي الله عنه مبشر بالجنة بوها مبشر بالجنة هبينك نبينا عليه الصلاة والسلام معراجك مركو صونق نبيك وكي كيري بلال إني سمعت دفن عليك أمامي في الجنة يا بلال شنقد هذا كبهاك شنقد ذي أيان جنة هرتي إذا كم مغلي محادك قبض صدالك كو قادب رسولك يدي وحول يا رسول الله أنه وحان لازمها طهارد أيان لازمها ماشا ويسدو أيقا جبتنا وكوي سقاطها لأن الصلاة إلهين ويقدر أيبان تكدا انتو الله يقدر أيبان تكدا مرقاب نبي قد جوابو كيري هذه هي التي بلغتك تأد مقامك كقادي وويسقبك لازمتي إيا مرقاب ويسقاطة لبدا ركعدود تكنيسو تأد مقامك كقادي وطاب رسولك يري ولا لا يلقفك بنا آذنك وحق darajadaada kor kuu qaadaaya ee qiimo ku yeelaaya maaha lacag maahin qabiil maahin cilmiga maadiga dadku maanta ay run moodayaan maaha maadada iyo daaraha lagu tartamaye waxa qofka bini aadamka kor u qaadaaya waa iimaankii camalka saalixa ah man kaana yuriidu al-izzata falillahi al-izzatu jamii'a qofusiyay usiika ya muaad waxaan kugula dardaarmayaa buu nabigu ku yiri la tad'anna fi dubri kulli salah an taqul اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا معاذ waxaan kugula dardaarmayaa salaad walba gadaasheeda inaanad ka tagin inaad tidhaadid ilaahu aniga waxaad igu kaalmaysaa daacadaada iyo dikrigaaga iyo cibaadadaada teeda wanaagsan cibaadada wanaaggeega maada nabigu ma siinayo ninka uu jecel yahay adduunye ma siinayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam shakhsiga uu nabi maxamed jeclaado waxaa la siinayaa acmaal ilaahay u dhowaynaysa waxaa loo sheegayaa ducada ilaahay jalla wacalaa khasaa'inta ilaahay furaheega lagu furanayu nebigu siinayaa walaa adri habeenkaa mucaad binu jabal kayfiyadee buu ku seexday ubay bnu kacab يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا وسماني بود يا رسول الله رسولك إلهي باكل أبي بن كعب وأنا أقول أخرست فينا قرآنك إلهي أي نبي محمد ليها يا أبي بن كعب ربي قيباي أمري إنا كقد الآخر يا ذيك الدش هذا سورة البينة لم يكن الذين كفروا markaasuu wasamaani ma rabbigayba aniga magacaabay markaasuu ha subhanallah farxadu ku saxda habeenka saxaabigaasi bal ka warraba tasawaru takhayalu bal ka fikra ilaahay ba magacaabay oo leh ya muhammad ya jibriil u sheeg nabi muhammad waxaad ku tiraahdaa ubay ibn ka'ab suurada korkiisa ha ku akhriyo ma rabbigayba magacaabay fabaka ubay farxad bul ooy فرحت يبكون من شدة الفرح محادتك إلهي كجعل هذا هودو دمي راعين هنونك راعين شهودو دمي راعين شريعة دي راعين باطل كمي راعين حق أي راعين نفتو دمي أضعين إلهي بأضعين دينتن إسلام لماذا إنكم أنت عن هيسنو أن إنكم أنت عن كو أبتر سنينو أمي كرون شيئا بس دينتو ودينتي صلاة وصلاتي قرآنك وقرآنكي حديثك وحديثكي قبلة وقبلتي صونك وصونكي مساجد ومساجدي حاجة وجسنا بنو جسنا سورة فاتحة آخرنا ما نخرينا لكن قلوب تسبد شمانتها هاي اسبد لي
قلوبته أثبت الشيء. هذا أبي بن كعب، وهذا معاذ بن جبل، وهذا بلال الحبشي رضي الله عنه، وهذه خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. جبريل عليه السلام أيا سمدا كسو دادقيا مكو إمنيا وحكلا أمسعدو وحكلا مسدو صلانيا بشارو سدا أيو أسدا خديجة أسدا رضي الله عنها أم المؤمنين. يا محمد خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين وعدو الشيكتا الله السلام كان سلام قسدا وعنا الله بشاري وبشاري قصر الجنة كويا اللي قلي دونتا قصري ومركي قشنا وحسا وحنا إيا اللغوي يقيلوها بيراتي أيسان مغلي دونين با الله بشاري وبشاري بوكيدي. خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ولا لي البشر كان بني آدم كان إلهي نقو قيمين ما يا قبيل، إلهي نقو قيمين ما يا لعق، إلهي ما دن نقو قيمين ما يو، إلهي وحاو نقو قيمين وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما شاء دون تجوب طبقات دون تكجر وعي إلهي كقول حساب تميا وإيماني الله كبقويا. بلن كيس إلهي كما بحين من باجن إنك أسبدل إلهي أسبدل جل وعلا. فنتبع الهدى حنونك هدار رعنو ونهوذي إنك الصهرنو إلهي تبارك وتعالى صدودتك الراليق وغن نقضي أيا إلهي إنك الراليق وغن نقضي markuu muslim iga dhigay oo muslim adigana ka dhigay waa khayr ba ilaahay kula doonay. nicmadan wadan hoos aanu eegno ninba dayman qaali yusita nin tuuga ayaa arkay wuxuu rabaa daymanka dahabka qaaliga inuu ka dhaco ka xado waxa uu ku yiri halkaad u socotaa wuxuu tuulada baan u socdaa aniguba tuulada baan u socday han israacnayna mar buu ka yidhi waa tuulada isagu ma socday jawharadan iyo daymanka qaaligu ninkani watuu rabaa inuu ka dhaco ka xado maalintii oo dhan way socdaan habeenkii ninkan waa taacad oo iska seexdaa laakiin tuuga habeenkii ma seexanayo uu shaqaystaa markaasuu saqdii dhaxa uu baadhaa jeebadihiisoo dhan buu ka baadhaa uu ka waayaa waa berigana wuxuu arkaa ninkii oo gacanta ku haysta oo la soo baxaya oo eegaya xeraysanaya wuu yaabaa war waa kan habeenkii oo dhan waan raadiyaaye habeenkii xaguu dhigaas maalintiina u haystaaye haddana habeenkii kalaa soo galay sidii iyo si lamida uu arkaa isagoo haysta habeenkiina uu ka waayaa maalinkiina wuxuu arkaa ninkii oo haysta magaalada u socdaan markay u dhawaatay runta u sheego wuxuu ku yidhi anigu tuulada baan u socday waxaana ku soo raacay jawharada qaaliga inaan ka dhacon ka xado maalinkiina waan arkaa adoo haysta habeenkiina waan ka waayaa habeenkii halkeedgiisa buu ka yidhi wuxuu yidhi cadceedu markay dhacdo dhulku madoobaado ayaan jeebadayda ka soo saaraayo jeebadaadan ku ritaa buu ka yidhi xaguuna ka raadinaya isagu yaa jawharada qaaliga isagii jeebadiisay ugu jirtaa habeenkii laakiin meel kaluu ka raadinayaa mithaalka maxaan u soo qaadanayaa war waxaan ku liibaanaynaa adduunkan iyo aakhira innaka haysanna waa ilaahay amarkiisa waa islaamnimadoo sideeda u qaadanno waa qur-aanka kariimkoon barannoon ku camal falloon ka shaqayno oo wuxuu noo xalaaleeyeyna aan xalaalshanno waxa uu qur-aanku naga xarimayna aan xaaraan u aragno nebigeenni moxamed aha calayhi salaatu wasalaamna aan ku dabadayanno taasay liibaantu ku jirtaa laakiin maanta liibaanta muslimiintu meel kale ka raadinayaan amniga meel kale ka raadinaynaa ilaahayna amniga iimaanku ku sheegay alladina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahumul amnu wahum muhtadun alladina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyey tabaaraka wa tacaala walam yalbisuu iimaanahum bidulm iimaankoogana shirki aanan ku ladhin amniga kuwaasa helaya baa ilaahay yidhi amniga ilaahay ciidan kuma xidhin dowladna ilaahay kuma xidhin ilaahay amniga waxa uu ku xidhay iimaan dhaba ilaahay ku xidhay hadday dadku iimaan dhaba la yimaadaan oo iimaankooga shirki ayna ku ladhin ilaahay ballan wuxuu qaaday iimaan amnina inay helayaan hanuunkana inay kuwaas ay mutaysan yihiin nolol wanaagsan baan doonaynaa kulligeen soo ma rabno
ilaahay nolosha wanaagsan wuxuu ku sheegay iimaanka iyo camalka saalixa man camila saalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mu'minun falanuxiyannahu xayaatan طayiba ilaahay baa leh iimaan iyo camal saalix qofka laga helo labiyo dhidig midku dooni ha noqday baa ilaahay leeyahay waxaan ku noolaysiinaynaa oon ku noolaysiinaynaa baa ilaahay leeyahay nolol lagu noolaato ugu wanaagsan nolosha adduunyada ugu wanaagsanee ugu macaan waxaa ilaahay ku bixiyaa iimaanka iyo camalka saalixa innagu waxaan leenahay maanta iimaankiina waan leenahay salaadiina waan haynaayo waa camal saalix bay ka mid tahee noloshii wanaagsaneeda ilaahay ballan qaaday mee baan leenahay waa kan muslimiinta maanta adduunyada ay rafaadsan yihiin ee dhibaataysan yihiin iimaanka ilaahay qur-aanka uu ku sheegayo iyo camalka saalix ee qur-aanka lagu sheegayo iimaanka iyo camalka saalixa kan maanta innagu aan haysanno ma aha waa kay saxaabadii rasuulku ay haysteen waa iimaankii qalbiga abibakar ku jiray iimaankii qalbigii bilaal ku jiray salaaddii abubakar uu tukanayey salaaddii abu hurayra uu tukanayey salaadduu cumar tukanayey ta loo jeedo waa taa weeyaan waayo dadkaasaa u ahaa iimaankii camalka saalixa maal baa ilaahay u soo qaadanayaa maal waalmu'minuuna kullun aamana biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ilaahay baa u markhaati kacay inay mu'miniin dhaba ay ahaayeen oo ilaahay ay rumeeyeen oo ergada ay rumeeyeen oo kutubta ay rumeeyeen oo aakhirada ay rumeeyeen oo rususha ay rumeeyeen maadaama iimaankoogu ilaahay uu kaamil ka dhigay kuwa loo jeedo waa kuwaasi adiga ma aha iimaanka ummadda la doonay in la gaadhsiiyena waa iimaankii saxaabadii ugu nin muslima ayaa nin sheekha u yimid oo ku yidhi qur-aanka waxaan ku haynaa wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin waxaa ilaahay leeyahay waxaa xaq nagu ahaaday gargaarka mu'miniintee maanta adduunyada mu'miniinta waa kuwan dhibaataysan aawi gargaarka ilaahay wuxuu yidhi ilaahay mu'miniin buu yidhiye gargaarka ilaahay waa inoo ballan qaaday inuu noo gargaaraayo laakiin mu'miniintii qur-aanku sheegaya ma nahay maanta innagu kalimatuliimaan qur-aanka way ku taallaa laakiin mu'miniintii aawaya kalimatu taqwa qur-aanka way ku taallaa laakiin muttaqiintii aawaya kalimatulmuxsin qur-aanka way ku taallaa laakiin muxsiniintii aawaya kalimatu sabri qur-aanka way ku taallaa laakiin saabiriintii aawaya kalimatulqaanitiin qur-aanka way ku taallaa laakiin qaanitiintii aawaya kalimatulcilmi qur-aanka way ku taallaa laakiin culammadii rabbaaniyiintii aawaya kalimatu dikri qur-aanka way ku taallaa laakiin daakiriintii aawaya sifaadkan qur-aanku uu sheegayaa la rabaa inay qur-aanka ku taalla maahine waxaa la rabaa waxaan qur-aanku uu sheegayo dad noloshooda ay ku qoran tahay in la helaa loo baahan yahay khilaafadii cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhu ayaa nin yahuudiya masjiidka soo galoo yidhi aaweye qur-aankiinnii buu ku yidhi muslimiintii waxay u tilmaameen abudarda yidhahdeen waa kan qur-aanka yagii sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu ayaa suuqa magaalada madiina soo galay iyadoo salaaddii ay dhowaatay oo dadkii bacdaaradii iyo bakhaaradii iyo baagaashlayaashii iyo dukaannadii intay alaabahoogii oo dhulka sidaa u yaalla ay ka dhaqaaqeen ay masjiidka u aguugeen aguugayaana xagga dambe siigadiiyo boolku ka kacayo markaasuu cumar binu khadaab wuxuu akhriyey aayadda qur-aanka ninkii doonaya inuu arko aayaddaas rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah wa iqaami asalaa وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار نكي دونا يا آيات دايو شقين سينو أركو أصحاب محمد وأكوا سيقبو ما أنت إنك السوق يدين ولا ليال مركا لا إعدامو سوق مسلمة أو مسلمة ميت إن عدانو فرنسيسا هي دينة الإسلام كالسوق لي مسكيت كالله كيني إسلام نمدي بالله لقيني muddo markuu muslim ahaa buu gabadh bay markaa isla yar sheekaysteen muslimado soomaaliyada gabadhii buu aabbaheedu u yimid u yidhi gabadha waan jeclaaday ii dhisayeedna way jeceshahe odaygii baa ku yidhi dee maad islaamtay adigu anu muslim baan ahay buu yidhi oo dhowr sannoba islaam baan ahay dee hal maalinna maskiidka kaama arkine wuxuu yidhi dee marka la addimo muslimiinta masaajidda inta soo galaysa iyo inta hadhaysa iyomaa badan buu ka yidhi adeer aryamaa badan yaa inta hadhaysaa badan wuxuu inta masaajidda galaysae ku xeroonaysa xilliga la addimo anigu kuma biirine kuwa bannaanka joogaan ku biiray buu yidhi kuwaan ku biiray
marka aadaanku dhacayo la tukanayo kuwa dibadda joogaan ku jiraya kuwa soo galaya kuma jira buuri kuma biirin kuwaas maxaad ku jawaabay waa nin soo islaamay ba hadalka leh waa jawaab meesha taala islaamnimadan ilaahay jalla wa ala waxa uu soo dejiyay ma aha in quraanka ku qornaato ma aha in diintu memory ay ku taala ma aha quraanku inuu awraaq ku qornaado looma soo dejin quraanka waxa loo soo dejiyay in dadka noloshooda diintu ay ku qornaato salaadii baa laynagu farad yeelay waa in la helaa 100% muslimiintu salaada inay ilaalinayaan soonkii baa laynagu farad yeelay waa in ay noqdaan muslimiintu 100% kuwa soomaya qadbul basarka laynagu waajibiyay waa in muslimiintu 100% indhahooga ilaaliyaan xaaraanta ka dheeraada baa la yiri waa in muslimiintu 100% xaaraanta ka dheeraadaan waa in dadka muslimiintu ay noqdaan dad islaamnimadu ka shaqeeya laabtooda ka muuqato ninkii doonayay buu Umar ibn Khattab inuu arko ayada quraanka oo shaqeynaysa rijaalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah هاي قبل وأكوا أصحاب النبي محمد هل قفكوا هذه ما يسوق إلى المسجد حقه إلى بيت الله عز وجل الله أكبر هذا مغلان وعي هيان ودندول كيسدا ودقين قدونا الليباني قول إلهي أكتي سيد الله جل وعلا قول إلهي باحيا عز شرف إلهي باحيا يسعد إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بلال الحبش رضي الله عنه الدون مملوك أبوها ومقال هذا مكة لقود حدون صدول لعذابه لكن مركو أعمالي إيمان لي مدي وكان النبي محمد أوليه يا بلال حليت ولا شنقد هذا كبها الشنقد ودي جنة هرت إذا كم مغلي هل كان محدكم قاعد يشيك برسولكم كيوري والله هبينك بلال سيدابو كوس حديك ولا تاع هبينك فرحة ردد madaxweynaha ku ammaanay managerkiiba ku ammaanayay aabahaba ku ammaanay oo ciyaalka adiga ka dhex ammaanayay ilmaha marka la yiraahdo uu farxaya ninka shirkadda u shaqeynaya marka la yiraahdana ninkii shirkadda iska lahaa ee company-ga lahaa ayaa shaqo fiicnidaada hadalhaya markii la yiraahdana farxad buu marka qofkaasi reereyn baa laga dareemayaa haddii la yiraahdo wasiirka iyo ministerka ku ammaanayayna ka sii daran ba maxaad u malaynaysaa nabiyullaahi muhammad عليه الصلاة والسلام أيا بلال كله يا بلال حليتوله كبها الشنقد ودي بان جنة هرتي إذا كم مغلي بالله عليكم هبين كبلال سدوي بكل شهدك ولا تفرح حد ردد سدوي كل شهدك معاذ هبين كي نبي محمد ما أنتوا نبي محمد معاذ بن جبل قعنته وقبته كلها والله إني لو أحبك يا معاذ إلهي بان قدرته وأنكو جعله ولا لا ورسولك إلهي هذا الكوحل ورسولك إلهي صلى الله عليه وسلم ما ها شخص عادي هذا الكقف كله إن ير والله بتنجركوا بحسمن وخزرجيا أي نبي محمد قعنت يتوقف تقولي هي والله إني لو أحبك يا معاذ إلهي بان قدرته وأنكو جعله ومحل لقول جعل هذا الرقاص وأيا جعلات ما قبل با جعلات ما مدحوينا جعلات ما سياسي با جعلات مودي ساعة ما منافق با جعلات مودي ومحمد عليه الصلاة والسلام خلقك إلهي أبوري كي أغو خير بنا أغو شرف بنا أغو كرامة بنا أيا كل يا معاذ والله إني لو أحبك هداد مهرد هذا دح جوكتو وحاد كدق انت هاي أذيك والي إلهو مهرد إذا أن دح جوكا كاوين وكا قيمة بدن هذان كي ودعايا هداد مقايدة فرددود قيلة يسو وحي كدق انت هاي قيلادا هي فدغا halka aan fadhiyo ayaa amarka ilaahay igala weyn bay ka dhigan tahay lisaanul qalma waxaad ku leedahay waa lisaanul haal waxaad ku leedahay hadaad ubadkaaga la joogto aadaankii oo dhacayo aad maqlaysid waxay ka dhigan tahay inaad tiri amarka ilaahay la igu yeeray waxay igala qiimo badan ubadkaaga igala qiimo badan wali wixii amarka ilaahay loo dayacana ogow waxaasi uu dayacan yahay khalaas ninka salaada dayacayna wax kastana uu dayici salaada ninkii dayacay reerkiisa uu dayacay mas'uuliyad hadduu hayana uu dayacay tuu dooni haddii loo dhiibo uu dayacay waayo cumar binu khadaab radiyallahu canhu khilaafadiisii buu odhan jiray waryaada zamankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyiga ayaa shaqaynayay qofka qalbigiisa waxa ku jira ayaa nebiga looga warramayey deedna markaasaa nebigu qofka uu kala garanayey ma muumin baa mise waa munaafiq mise waa kaafir ama waxyigii uu go'ay buu yidhi annaga waxaan eegaynaa daahirkiina eegaynaa buu Umar bin Khattab ninka khayrka aragnana waan aaminaynaa
oo talada ummadda waxbaan uga dhiibanaynaa ninka khayr aan ka arki weynana aamini mayna buu Umar ibn Khattab nin ayaa u yimid oo yidhi yaa amiir almu'miniin waatan dawladda islaamku ballaaratay aniga maad iga dhigtada maaragtaane waali maad iga dhigtada maaragtaane nin mas'uula oo magaalo maad iga dhigtada xaakim markaasuu Umar ku yidhi waad u qalantaa waa runta bari toolay kaalay buu noodkan ku diyaarinaya magaalaan ku dhiibay oo amiirka ka dhigayaa nasiib ninkii wuxuu Umar ku soo noqday xilli Umar ibn Khattab ubadkiisii ay dhunkanayaan oo isaguna dhunkanaya oo ciyaalkiisii iyo isagu wada ciyaarayaan markaasuu yidhi yaa amiir almu'miniin oo ciyaalka yarna ma dhunkanaysaa markaasuu Umar ku yidhi soo ubadkayga maaha maxaan u dhunkan waayey wallahi anu intaasoo ubada ayaan dhalay buu yidhi oo weligay midna kama dhunkan buu yidhi ninkii markaasuu Umar ku yidhi warqaddaan kuu qoray ii dhiib warqaddu maxaa ku qornaa waddan dhan buu u magacaabay inuu ka noqdo amiir warqaddii intuu qaadu ka jeexjeexay markaasuu yidhi ubadkaagii baad u naxariisan weydee seed ummadda nebiga ugu naxariisan buu ka yidhi orodoo reerkaaga u naxariisan buu ka yidhi maa cindak raxma cala alahl kayfa tarxam cala alumma muxamadiya ubadkaagii baad u naxariisan weyday ood u damqani weyday ood dhunkani weyday ood wakhti ku bixini weyday ood tarbiyadayni weyday ood jeclaani weydee seed ummadda nebiga ugu naxariisan buu ka yidhi orad naxariista gurigaaga ka soo bilaab buu ka yidhi halkaa ka soo bara raxmadda diin dhinac walba kaa dhisaysaa ilaahayna siiyey innaka boqolkii boqol maanta mujtamaceenna haddaad meel walba marto ma aha waddankeenna oo keliya meel kasta caalamka mar maanta nuqsaan diineed baa taala caalamka nuqsaan adduunye ma taala adduunyadu way biiraysaa dhismuhu magaaladeenna Hargeysa muu biiraa mise uu naaqusmay war ii sheega wuu biirayaa soo ma bishii aan maqnaadeen soo noqdo meel cusub baa biiraysa adduunyadu way biiraysaa laakiin khayrkii muxuu la biiri laayahay maxaa diintu la biiri laadahay maxaa mujtamaceenna islaamnimadu kashkoogee laabtooda uga muuqan laadahay maxaa dhallinyaradeenii sunnadii nebigu uga muuqan laadahay adduunyada waa loo dadaalayaa laakiin diinta maanta cidna u dadaali mayso adduunyadu agoon maaha islaamihii baa adduunyada ka shaqaynaya oo inamadii baa adduunyada ka shaqaynaya oo rag iyo dumar baa adduunyada ka shaqaynaya diin shaqadeeda marka la soo gaadhana culimmadan ku riixaynaa bas horayaan ku riixnaa culummadu aanu caalim ma yihiin salaadda caalimka lagama rabo salaadda faradka caalimkaa laga rabaa jaahilkaa laga rabaa taajirkaa laga rabaa faqiirkaa laga rabaa madaxweynaha laga rabaa soonkawana waa la mid ilaaha soonka faradkaaga dhigay salaadana faradkaaga dhigay diintan inaad wax gashatood u dadaashidna ilaahaasaa ku amray diinta inaad ka shaqayso inay diin noloshaada ay timaaddo mujtamaceenna diini ka muuqato dadaal bay nooga baahan tahay lidaalika zamankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam dadaalka diinta ummaddu umaysan kala hadhin wallaahi umay kala hadhin cajiib abu talxa ninka la odhan jiray waa ansaari buu ahaa ummu sulaym radia allaahu canha waa anas binu maalik hooyadii oo mu'minadoo muslimada ayuu damcay inuu guursado markaasuu u haasaa u yimiday inaan ku guursadaan rabaa ka warran waxay ku tihi maad islaamtay markaasuu yidhi may laakiin diin baan haystaa anu bal gabadha hadalkay ugu jawaabtay eeg markaa bay ku tidhi diinteed haysataa afalaa tastaxyi maad xishoonayn bay ku tidhi maad xishoonayn diinteed haysataa ma ninkaaga qoriga caabudaya iyo dhagaxa la qoray caabudaya ayaa le diin baan haystaa xishoo bay ku tidhi diin ma haysatid diin annakaa haysanna diin waa diinta nebi maxamed uu la yimid calayhi salaatu wasalaam hadaa huwa diin markaasuu ka sii jeestay way ka daba hadasho waxay ku tidhi in aslamta fa innii laa uriidu minka sadaaqan hayrahu bay ku tidhi hadal macnihiisu ahaa yaa abaa talxa soo noqo bay ku tidhi haquusan kaalay haddaad soo islaamtid bay ku tidhi mahar iyo mariin dumarku ragga waxay xaq ugu lahaayeen kaa dooniba maayo islaamnimada aad soo gashay
ayaan meherkayga iyo mariinkayga u qaadan bay ku tidhi maxaa gabadha agteeda qiimo lahaa bal ii sheega ninkaa inuu islaamu naar ka badbaado cajiib oo islaamay wuxuu yidhi ma intaa unba ahaa waxba iga dooni maysid waxba kaa dooni maayo islaam bas waayahay anas radia allaahu canhu oo khaadimkii nebigeenna ah oo iyadana inankeygiiya ayay ku tidhi hooyo gacanta qabo nebiga u gees sal alla alay wasalam markaasaa nebiga loo keenay markaasuu nebiga hortiisa ku ashahaatay markaasay ku tidhi soo celi anasow markuu islaamo markay u soo celiyey ayay ku tidhi haddaba anasow hooyada u guri bay ku tidhi yacni hooyada maanta laga bilaaba ku ogow bay ku tidhi maaragtaane waa kaasa ninka maadaamuu ballankii buuxiyey anna ballankayga waan buuxiye waa ninkaygii bay tidhi abu طalxa gabadh cajiib ahayd ummu sulaym yaa rayta haweenkeennu may gabadha ku daydaana dumarkeennu hadday horumar doonayaan hadday taariikh fiican doonayaan hadday ilaahay ridihiisa doonayaan may haweenkaa ku daydaana haweenka saxaabiyaadka abu طalxa caloosh uu la aqalgalay wiil bay u dhashay safar buu u baxay uu soo noqday markaas ilmihiioo xanuunsa buu ka baxay uu soo noqday markaasuu ku yidhi yaa ummu sulaym ilmahaygii yaraa bal iga warran siduu yahay waxay tidhi sidii aad kaga tegtay uu ka xasilloonni badan yahee isqabooji bay ku tidhi xaaji iska naso safar baad ka timid isqabooji markuu habeenkii u dharkii dhigtay u yar nastay uu casheeyey gogashiina ay dul yimaadeen ee wada seexdeen saqdii dhexe ee xaaskiisiina ay is arkeen uu barakeeyey ayay ku tidhi intay badhida u fadhiisisay yaa abaa طalxa i dhegayso su'aal baan ku weyddiine jaarkeenna haddaan alaab ka soo caariyaysanno oo alaabtoodii subaxda ay nagu yidhaahdaan alaabtii xalay aad naga qaadateen noo soo celiya ma u celin lahayd mise waa u diidi lahayd maya waan u celin lahayn buu ku yidhi markaabay tidhi haddaba ilmaheennii yaraa inakumaan lahayn ilaahay baa inoo dhiibtay ilaahay lahaabaa qaatee anigu waan sabre adiguna iska sabiro maydkiisiina waa ka halkaa ku duuduubana ka iga soo aas bay ka tidhi taariikhda adduunyada gabdha caynkaasa ma soo marin mana soo mari doonaane ogaada ilmaheegii oo shafeecay oo mayda oo aqalka dhexdeeda u yaallood mare ku duuduuban ayay sariirtan ama firaashkan dushiisana ay ninkayga ku dul raalli gelisay uu yaabay abu طalxa maxaa tidhi waxay tidhi ha walwalin waa lana bare tarbiyad baa la baray iyaka inna lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musammaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu saxaabadiisa ka dhaadhiciyey saxaabiyaadka gabdhihiisa ugu horreeyaan waxa uu baray waxa ilaahay uu qaadanay isaga unbaa iska leh waxaan haynana isaga unbaa inuu dhiibtay war ma waxbaan leenahay innagu ma lihid maalintaad hooyadaa ka soo baxday inanu hooyaday ka soo baxay walaa islaam baa ila socotay walaa inamaa ila socday walaa gabdhahaygaa ila socday mid walba keligii buu caloosha ka soo baxay keligiina caalamka uu ka baxayaa waladadka ummuka ya bna aadama baakiyan wاnnaasu xawlaka yadxakuuna suruura faxfad linafsika an takuuna idaa bakow fii yowmi mawtika daaxikan masruura hooyadaa waxay ku dhashay adigoo ooyaaya dadkuna agtaada ay faraxsan yihiin oy leeyihiin wiil baa dhashay maxaan u bixinna ay leeyihiin ilaahay amarkiisa intaad adduunyada ku nooshahay ilaali oo diinta ilaali oo salaadda ilaali oo amarka ilaahay ilaali si maalintaad dhimanaysid aad adduunyada uga baxda adigoo faraxsan dadkuna agtaada ay ka baroortaan tarbiyaddaabaa saxaabada la baray waxa ilaahay uu qaatanaya isaga unbaa iska leh waxaan haysannana ilaahay jalla wacala isaga unbaa inoo dhiibtay ilmahii waa kaa maydkii waa kaasa kacsoo aas bay ka tidhi deedna markaasuu abu طalxa radia allaahu canhu wuxuu sameeyey markaa waxau u tegey nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulkiibuu u sheegay markaabuu nebigu ku yidhi acarastum leylata yaa abaa طalxa xalaytoole maad caroostay oo caroos maad haydo xaajiyad islaantaada xalay ma barakaysay markaasuu yidhi yaa rasuulallah markaan casheeyey iyadiina aan barakeeye kadib ayay arrinta ii sheegtay buu ka yidhi markaabuu nebigu ku yidhi baaraka allaahu fii laylatikumaa is-araggiinni xalaytoole allah inii barakeeyo buu ka yidhi is-araggii xalaytoole allah inii barakeeyo habeenkii ducadii baa ilaahay u aqbalay
caloosheediiba habeenkiiba riximka ilmaa u galay ilmihii wuxuu noqday wiil buu noqday wiilkii maalintuu dhashayna nebi maxamed baa loo keenay cabdullaahi buu nebigu u bixiyey yaa taxniigga nebiga u sameeyey magaca nebiga u bixiyey dhabtii nebi maxamed baa lagu qabtoo lagu ciyaarsiiyey waxaa uu yidhi sufyaan bin cuyayna waxaa la arkay ilmihii yaraa oo 9 wiiloo culamaaya isaguna dhalay ilmo barakaysan muxuu dhalay muxuu dhalaa sheegade awlaad barakaysan buu dhalay mid barjeeyana muxuu dhalay mid barjeeyoon buu dhalay qabiili buu dhali qabqabluu dhali siyaasi buu dhali laakiin ninka diinigu diini buu dhali ninka barakaysan reer duriyad barakaysan buu dhali ilmo barakaysan buu ahaa barakadiisa waxaa u daliila habeenkuu riximka ku dhacay buu nebigu yidhi baaraka allaahu fii laylatikumaa is-araggiinni xalaytol allah inii barakeeyo maalintuu dhashayna dhabta nebi maxamed baa lagu ciyaarsiiyey taxniigga nebiga u sameeyey magaciisana nebiga u magacaabay sufyaan bin cuyayna oo ruwaatulxadiis ka mid ahaana wuxuu yidhi 9 wiiloo culamuu ilmihii dhalay buu yidhi allahu akbar haadihi ummu sulaym radia allaahu canha walaalayaal dadkaas agtooda diintaa qiimo la lahayd gabadhaas budcigeegii bay ku iibsatay diin meher iyo marin waxay xaq u lahayd waxay ka doorbiday inuu abu talxa diinta islaamka soo galo innaguna maanta muslim walaalkeenna oo qaraabadeenna oo talkeenna ayaa agteenna bilaa salaad ku dhimanaya goormaan diinta u sheegnaa ma taqaanaa soomaalidu goorma isku gurmataa markuu qofku dhinto markaa unbay baraarugi ma la aasay qabrigiisii ma la tegey nacashkii ma la soo qaaday kafankii ma loo soo gooyey badh reerka oo dhan baa qabuuraha iman maxay kuu qabanayaan waa kaas war intuu qofku nool yahaa la rabaa gacanta in la soo qabto miskiidka la keeno lagu noqnoqdo loo duceeyo la ikraamo markaska la geeyo dacwadda lagu soo xidho loo dulqaato loo sabro loo kaadiyo laga quusan ambiyadu ma quustaan dee diintu dadaalkaa bay nooga baahan tahe kulligeen insha allah dadaalka diinta ma guddoonnaa insha allah dhahada war si fiican u hadlo insha allah dhahada diinta dadaalkeega han guddoonno oo marka laga idhahdaa wakhtigaaga qaybi oo ilaahay darti u bax marka laga idhaahdo xagga dambe ha eegino xagga dambe ma taqaanaa islaanta meheradda ubadka waa xagga dambe فأما من أوتي كتابه وراء ظهره maxaa ku xiga فسوف يدعو ثبورا ويصلى maxaa ku xiga إنه كان في أهله مسرورا xagga dambe ha eegin reerkana dayac laguma leh ha dayicin reerkaaga gaajo ha kaga tegin bilaa masaariif ha kaga tegin sidii ninkii nebiga u yimid yidhi awrkayga maan dabraa mise ilaahay baan u tala saartaa muxuu ku jawaabay nebigu awrkaaga dabar ilaahayna tala saaro reerkaaga masaariiftooda uga teg ilaahay dartiina u baxo wakhtigaaga yar qaybi isyar qorshee insha allah dhahada walkeenna allah ha shaafiyo mawtaadkeenna allah u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meelay joogaan muwaafaqiin midnimana allah ha siiyo daacadda allah inoo macaaneeyo اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا سند من لا سند له ويا عماد من لا عماد له يا منجي الغرغى يا منقذ الهلكى يا أمان الخائفين ويا جار المستجيرين إلهي سيدي ومولاي هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك أمرتنا فتركنا نهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا أكرم الأكرمين أكرمنا بنور الإيمان اللهم ردنا إليك ردا جميلا ألف بين قلوبنا اصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اخرجنا من الظلمات إلى النور جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون
salaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin